ganacsade Suudaani ah ayaa waxa uu yidhi waxaan wada ganacsan jirnay saaxiibkay Sacuud. Sidii caadada ahayd maalin waxaan tegay masjidul jaamaca si aan uga soo tukado oo aan u soo oogo salaada. Kadib imaamku waxa uu yidhi waxaan oogaynaa oo tukanaynaa salaatul jinaasa. Waaba yaabay yaa dhintay ayaan isweydiinay. Waxaan la yaab nagu noqotay inay noqoto saaxiibkayo janaasadiisii. Kadib waanu ku tukanay saaxiibkayo Sacuud janaasadiisii raxmatullaahi calayhi. kadib waxaan u tegay ubadkii uu ka tegay Sacuud si aan ula soo xisaabiyo ganacsigii uu ka tegay aabahood, aniga og in lagu lahaa Sacuud oo ay dayn uu ku lahaa nin ay ahayd 300,000 oo riyaal. Waxa uu iga dalbaday ganacsadihii deynta ku lahaa Sacuud in ubadkiisa uu iga soo qaado lacagtii uu ku lahaa una markhaati furo, laakiin waxa ay dalbadeen in ay tuso waraaqo cadaynaya inuu ku lahaa deyntaasi. Inkastoo deyntaasi waqti badan uu ku lahaa, laakiin waa ay diideen ubadkiisii inay waxba bixiyaan ilaa iyo cadayn buuxda loo keeno. Laakiin cadayn buuxda waa loo waayay. Deyntaasi waqti badan oo ku lahaa iyo aaminaad u aaminay ganacsadahani, anigana markhaatigayga waxba waa uu tari waayay. Waxay yidhaahdeen waxa uu nooga tegay aabbahayo 600,000 oo riyaal. Ma waxaanu lacagtaas kala barhsiinaa nin aan wax cadayn ah oo waraaqa ah haysan, oo aan annaguna gacmo badhnaan ka soo istaagnaa? Waa taas adduunyadu. Waxaan iska niyeystay saaxiibkay oo lagu leeyahay dayn oo lagu haysto qabriga dhexdiisa. kadib 2 cisho dhacdadaasi, markastoo aan indhaha isku qabto waxay hor imaanaya dhoolla cadayntii Sacuud iyo isagoo iga dalbanaya musaacado iyo in aan caawiyo. Kadib waxaan iibiyey ganacsigaygii oo dhan, lacagtiina waxay i gaadhay 450,000 oo riyaal. Kadib waxaan ka guday saaxiibkay deyntii oo waxaan siiyey ganacsadihii ku lahaa deynta Sacuud anigoo ku wareejiyey ganacsigaygii. Waxa uu iga tanaasulay oo ii soo celiyey 100,000 oo riyaal kadib markii uu ogaaday inaan iibiyey goobtii aan ku ganacsan jiray iyo alaabtii dhammaantood. Intaa kadib ganacsaduhu wuxuu ahaa mid uga sheekeeya ganacsadayaasha kale ee Burayda arrintayda. Maalin waxaa yimid mid ka mid ah ganacsadayaasha magaalada Burayda isaga oo ii siiyey 2 goobood oo aan ku ganacsado, midna aan ka dhigtay store, midka kalena aan ku ganacsado. Waxa uuna i dhaariyey oo uu yidhi waxba igama soo celinaysid. Kadib isla markiiba waxaa ii yimid intii aanan dhammaynba nadiifintii 2 goobood. Waxaa ii yimid gaadhi waxaana ka soo degay wiil. Waxa uuna igu yidhi halkan waxaa saaran bidaaco iyo alaabtii ganacsiga. waxaad noo soo celinaysaa faa'iidada kala badhka kalena waxaad u qaadanaysaa hadiyad ahaan oo ku ganacso. waxaan ii imanayay dad badan oo kala duwan oo iga dalbanayay inay musaacadeeyaan. ganacsigaygii waa oo koray si aan u kori jirin weligiiba. waxa uu ka sheekeynayay sanadii 1436 hijriga. waxa uuna yidhi sanadkan waxa aan ka bixiyey maalkayga sakada 3 milyan oo riyaal. fiiro gaar ah ubadkiisii uu dhalay waa ay diideen inay deynta ka bixiyaan, laakiin saaxiibkiisii nolosha waa uu u ogolaan waayay inuu lagu haysto saaxiibkii qabriga. waa taas saaxiibtinimada dhabta ah iyo walaaltinimadu. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.